qiimaha dhalinyarnimada waxa ay dad badani garan doonaan marka ay ciroobaan, kartidii, xooggii iyo caqligiina ay beelaan. waxa ay bilaabayaan shalayto aanan soo celin karin waqtigii dahabiga ahaa ee dhalinyarnimadoodii. noloshu waxa ay ku dhammaysan doonaan ciil iyo shalayto. haddaba adiga inta aysan taasi kugu dhicin, dhalinyarnimada qiimaha ay leedahay weydii dadka waayeelka ah. waanada ugu badan ay ku siin doonaan ayaa ah ka faa'iidayso dhalinyarnimadaada, ka faa'iidayso kartidaada, xooggaaga iyo caqligaaga ilaahay uu ku siiyey intaad dhalinyaro aad tahay. qof kasta oo aad maanta u riyaaqdid waxa uu hayso waxa uu geliyey dadaal markii uu dhalinyarada ahaa. markii fursadaha ay hareero dhoobnaayeen ayuu ka faa'iidaystay, kadibna maanta ayuu si wacan ugu naaloonayaa. xagga kalena qof kasta oo aad maanta aragto la daalaadhacayo daruufo iyo faqiirtinimo, waxa uu iska beeldareeyey dhalinyarnimadiisii. waxa uu ku lumiyey wax uusan garanaynin wax uu ka heli doono meel fadhiis, dublad ciyaar iyo fadhi ku dirir. kadibna maanta ayuu ka shalaynayaa waqtiguu iska lumiyey. dhalinyarnimadu waa waqti dahabi oo aan soo xasuusan doono marka aan gabowno. waxaan dib u jeclaan doonaa in dib nagula celiyo, laakiinse ma dhacayso. maanta ayaad haysataa fursadda aad kaga faa'iidaysan lahayd. uga faa'iidayso wax adduun iyo aakhiro ku anfacaya. waari mayside, war ha kaa haro.